madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hogaaminayo oo ku guda jiray safarka shaqo ay ku joogaan dalka Itoobiya ayaa maanta booqasho ku tagay safarada Soomaaliland ay ku leedahay caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa. madaxweynaha iyo xubnaha wafdiga ee wehelinaya ayaa waxa safarada ku soo dhaweeyay safiirka jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka Itoobiya Ambassador Axmed Xasan Cigaal ku xigeenkiisa iyo shaqaalaweynaha ka howlgala safarada Soomaaliland ee dalka Itoobiya. safiirka Soomaaliland ayaa madaxweynaha siiyay warbixin ku saabsan qaabka ay safaradu u shaqeyso, qorshayaasha u dejisan, waxa uu qabsoomay iyo horumarka ay ka sameeyeen xoojinta xiriirka labada wadan. madaxweynuhu waxa uu safiirka iyo guud ahaanba shaqaalaweynaha safarada Soomaaliland ku leedahay dalka Itoobiya ku bogaadiyay sida hagar la'aanta ay qarankooda ugu shaqeynayaan, waxaanu ku booriyay inay halkaasi ka sii wadaan dadaalkooda. أحمد زكي داير حسن وربهين تقرن كالصوماليلاند.